waxaa wasaaradda waxbarashada sharaf iyo qiimo u ah howl dheer ay muddo dheer soo waday in maantay miro dhalkeeda aan taagana. waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo ka soo qaybgalka wanaagsan ee mas'uuliyiinta jaamacadaha kala duwan ee qaranka, hadday yihiin rektoradii iyo diinankii iyo macallimiintii na soo sharfeen inay maanta oo maalin aan isleenahay wasaarad ahaan waa maalin runtii tacliinta sare taabaqaadkeedu uu ka bilaabanayo. tayada tacliinta sare aan dhihi rabaa, tacliinta sare Soomaaliya hore usoo taabaqaaday. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waa maalintaas aan isleenahay waa u calaamadeyn karnaa inaan idhaahno waa maalintii u horreysay la bilaabay in tacliinta sare ee dalka la tayeeyo. inaan idinka warramoon wax idinka sheego tayada iyo baahida loo qabo dadkan u sheegi lahaa ma tihin. dadka la nool maalin walba tayadeena meeshay taagantahay ayaa tihin. marka waxaan jeclaan lahaa inaan idinka mahad celiyo ka soo qaybgalka ballaaran ee xooggan ee runtiina dhiiri gelinayso ee aad ka soo qayb gasheen. waxaan sidoo kale aan jeclaan lahaa inaan ka mahad celiyo labadii guddoomiye ee ugu muhiimsan marka laga hadla baarlamaanka Soomaaliyeed inay maantayna soo sharfeen. waa guddoomiyaha arrimaha bulshada aqalka sare iyo guddoomiyaha guddiga bulshada ee golaha shacabka, oo runtii laba shakhsi oo ay ka go'an tahay in ay meel gaarsiiyaan ma aha waxbarashada keliya, arrimaha bulshada. weliba Dr. Bariisa arrinta uu ka dhawaajiyo oo sharciga ah, annaga sharciga wasaaraddu waa naga gudbay. waxaan ku leenahay inaan diyaarino geyno akhrinta koowaadna aan samayn. waa ilaahay mahadiis maanta inay qof iyo guddi ku habboon ay gacanta ugu jira sharcigaas, haddana uu gudbi karo qof kale oo asigana sidoo kale u habboon. marka labadaa guddi ayaa sharcigaas iskaga dambeyn doona intuusan sharci noqonin. iyagana kasoo qaybgalkooda runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinahay. waxaan kaloo u mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada oo runtii aad iyo aad iskugu taxalluujiyey. haba u horeeya Ismaaciil oo runtii xataa asigoo aan si toosa hawshaas mas-uul uga ahayn siduu maanta uga yahay, xil badan iska saaray oo shaqo badan geliyey. howlwadeennadaasna waa u mahad celinahay. waxaan rabaa inaan bogaadiyo jaamacadaha dalka ka jiro oo runtii haddii maantay meesha ay wax keeneen aysan keeni lahayn ama laga hadleenba tayo aan laga hadleen laga hadli lahaa war jaamacad ma samaysana. marka runtii kaalintaas weyn oo ay qaranka u buuxiyeen waa ku bogaadinaya, waana ku ammaanayaa. sidoo kale jaamacadaha aragteen sida meesha laga dhawaajiyaba waxaa dhalay dalladahaas